What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel it's me, I feel السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادي يوتيوب channel كيني قصالتي. ظهر أنا قصة بير يمكن قصة بير لايك سبسكرايب شير. عشر كيس اتحاد كويك بوك عما كمبيوتر ريزنكا أما كمبيوتر أكونتيكا وحلوي قانع أيام كتيرنا وحنا صور دجاني سيدا كومباني لو سميو وحنا إنه كوبالنا إن opinion balance سبينه opinion balance هذا ندفعسيو شركة دمر كيدون سيني كورك تهاب كيماني والكا ay u soo wareegto habkan computerizerka waxa qasab ah inay sameeyso xisaab xidhka ayaa loo yaqaan opinion balance-ga waa in marka la geliyaa computerizerki oo ah bilihii tagay ama sanad ama ahaado ama quarter la ahaado wuxuu doona ahaade inta xisaab xidhka marka tusaale ahaan inta baynu ku sameeynaa qaabkan aynu sameeynaa waxa waa balance sheet iyo income waa xisaab xidh sameeyay dadana laga soo saaray balance sheet lagana soo saaray income statement waxaan sameeyay inaan akoonada qaar sameeyo kuwa kalena dadana aan si automatically anigu u soo gashto hadhow aan la imaado laakiin halka waxa ka tusayaan sida loo geliyo tusaale ahaan ka ugu hore cash on hand iyo cash on bank iyo account receivable saddexdaas gelinayna dabatana si aan u sameeyno imika waa inaan aadnaa halka ay ku qoran tahay list dabatana waa inaan ka sii aadnaa item list ama event chat of account kan leeyahay chat of account waa inaad ka aadnaa chat of account ka markaan aadno oo soo balaarinsanayna halkaas ku aragto waa cash in bank ayaa ugu horeysa cash in bank-ga inuu yahay wad aragtaan 3000 cash in bank-ga sindatana sidaan u sameeyno waa halka hore hoose aadna dabatana new baan oranaa dabatana akoonnadaas halka ku qoran akoonnadaasi waxay kala duwayaan chat of account-kaasi hadhow inuu aado ama income aado ama balance sheet aado saarahan kuwa sare waa income expenses baa aragtaa Soomaa income expenses waxa weey waa income statement uu khusaya kuna balance sheet ka u badan yihiin wixii aad ka weydaan halkaas aad ka sii dooranaysaa marka hadii aad ku kala doorto waxay ku cadaynaysaa akoonka hadhow ku dhacayo si xisaab xidhka marka la sameeyo ma balance sheet baadaya si income statement buu aadaya taan isla garanay marka tusaale ahaan aad tiraahdo cash on hand banki baad ku dhufanaysaa maxaa hoos imanaya cash check baa hoos imanaya savingki wixii oo dhan marka ma aha bangi yani ujeedadu waxa weeye cash haday noqoto bank wuxuu u aqoonsanaya computerku bangi uu hoosanaya oo lagu diiwaan gelinaya dabatana markan ku dhufano oka halkaas ku soo saaray cash on bangi oka markan ku dhufano ka baadi halkaas waxaan ku sameeynaa waxaan gelinaynaa waxa loo yaqaano cash on hand oo ah gacantii wixii cashkii gacanta la inooga dhiibay aan gacanta xataa aan ku hayno markaan sameeyno opinion balance-ga 6 bilood ama 5 bilood ama sanadka inta gacanta ku haynay dabatana submit ka hadhow aynu soo noqon doonaayo isaga hadhow aynu soo noqon doonaa laakiin waxaan gelinaynaa enter kaasaan ku dhufaynaa markaan ku dhufano wuxuu ka hadlayaa hadaba aan ku noqono meesha maxaa ku yaala lacagta waxay nagu yaalaa bishuna waa inta sax ka soo noqo halkan baad imanaysaa 3000 baad ku qoraysaa lacagtii meesha markaa bishina waad buuxinaysaa oo waxaad ku buuxinaysaa opinion balance-ga la sameeyo waxa xisaab ka dhigay bishiisi dabatana maxaad oranaysaa okay ka bacdina maxaad oranaysaa save and close baad oranaysaa dabatana warning-kaas uu ku soo saaraya warning-kaas waxa weeye tusaale ahaan transaction 60 cisho ka hor lagu talagalay imka baalkan taariikhda aan ku sameeyay 2018 waxa ku qoran laakiin transaction-ka hadba taariikhda cidii xilliga sameynaysa ku xiranta marka tusaale ahaan haduu 60 cisho ka horeeyo ama 60 cisho ka horeeyo aan leeyahay 60 ka cisho warning buu ku siinay koonay transaction-ka 60 cisho ayuu horeeya sax isaga ku saxaya hada transaction date-kiisu khaldan yahay aad sameeyso marka warning-kaas ku dhiibay 60 ka cisho wada akhrisanaysaa dadana waad fahmaysaa dadana wax weyn ma aha waana la iska xiri karaa mar walbana uu ka soo horbaxayaa oo warning-ka uu ku siinaya hadaad iska xidhana waa hadii adigu aad kala qasanayn transaction-nada iyo expense coordinate dadana imika kana maxaan iska ornaa no ban iska ornaa imika warning-kaas isaguna dadkii hore u sii tilmaamaya marka waxay ka dhigan tahay inaan imika cash on hand sameeynay oo 3000 oo ah marka xisaab xidhkii hore dadana mid kale gelinaa hadana new waan oranaa bangi waan oranaa dabatana continue oranaa ujeed ama nagasti ujeedadu maxay tahay
cash on bank ma sameynaa imka cash ka gacantan ku haynay kii bankiga inoo yahay kan gacanta ku haynay inteeba ku jirtay halka ka intaas ku jirtay waan aadayna dabatana halkii baan ku qoraynaa sagana dabatana dheedkiina waan hagaajisanaa opinion balance lagu sheegay saasa loo geeyaa xisaab xidhka sidaas dabada ugu qabanaysa wixii yunay kaliya akoonada yunay kaliya waanan kii wanisiiyay waanan ka hadda waan iska xidhnaa hadan intiin tilmaamnay saas saga xidho oo aad saga xidho hadda adigu ku khalkhalaysan waxa waan iska diisato laakiin inagu waan iska xidhnaa imka haday saan noqotay oo warninkii uu nagu soo celiyay mar walbana de nagu soo celin kari maayo dabatana horta nooban oranna waxaan aadana dabatana edit preference gan aadana account kan ka sii aadana company ban ka sii aadana halka waxa ku qoran maar ganas 60 cishe haduu transaction ku ka bato xasuus maarta haduu ka weyn yahay iyo haduu ka yar yahay yani talaan taariikhda maanta taale 60 cishe hadii ka dambayso oo taariikh aan la gaarin baa qorto ama taariikh la dhaafay aad ku qorto 60 cishe wixii ka yar ama wixii ka badana ay ku xasuusinaya marka halkaas uma checkta ama tigta ka qaadaysa labada uu ku tilmaamayo dabatana mar dambe kuma soo saarayo laakiin se waa hadii aad tahay verify ama adigu aad hubsan karto oo transaction-ka deeanad khaldayn marka transaction-ka aad qorayso simir qabo qorto ayay ku wacan tahay marka tigtum baa labada laga qaadayo saasuu kaaga xirmaya mar dambe kuma soo agmarmarayo okay ba dabatana halkaas kaga oranaysa marka halka ka soo noqono waxaan sameeynay imika sida arto cash in bank iyo cash on hand halka akoonka ku xiga waa account receivable waana ku laha subsidiary waxa la dhahaa loo yaqaan ayaa jira akoona yar imika akoonka sidiisa uma qori karo tiradiis waana sameeynaa akoona yar oo dabatana isu goyntooda account receivable noqonayo imika akoonadii waa kuwa subsidiary lagu sheegay aad akoontiga ku dhigatay meegaag saalaan dadkii ba tirinaysa meegaag qoora qofkii marka tiriso nin walba intii lagu lahaa ila waa account receivable wadeen noo maqane isu geyntoodii ba hadhow account receivable noqonaysa marka sagi halka lagu ma qori karo waa in inta soo aado customerkii aada dabatana aad sameysata customer meegaag qura galool dabatana aad opinion balance gelisa imika saalaan customerka koowaad waxaan ku leenahay kaas koobi baan oranaynaa dabatana qun yar baan aadaynaa dana basti baan ku soo oranaynaa lacagta intaan ku lahaynay qofkaas waan gelinaynaa ka bacdi warbixinada kale aad doontada gashanaya laakiin imika ujeedaduna waxa weey maadaama opinion balance xisaab xirtay waxa loo soo wareejinahay sideeda ayaan u dhaafeynaa akoonada waxa aad buuxsan kara waxaan isku mashquulina waqtiga iskaga ridna maaha dabeedna waa iskaga imanaysayo okay baa iska oranaysa warbixintuna saasay kugu buuxsamaysaa oo akoon receivable ama akoon bay balaado ama inventory ahaade iyagu subsidiary leeyihiin akoonada ay rol isu geeyay ee akoonka weyn lagu daraya marka akoon yarna way jiraan subsidiary baa loo yaqaan marka akoonti kala dhiganayo marka maaragtay isu geyntooda hadhow marka isu geeyana deynta dadka ku wada leenahay ama deynta inoo maqan akoon receivable baa loo yaqaanayo halkaas inoo oolaysa marka kale la kala qaadana subsidiary bay noqonayaan halka journalka kale general journalka ay noqdaan special journalkii khaaska oo 4 ilaa 5 meelaha kala qaybsamayay purchase journal adigu iyo kuwaas adigu laakiin okay baan iska oranayo inaad fahanteen baan ayaan filayaa marka imika saa ka soo muuqata kalabaad baynu eegaynaa kalabaad waa hebel dabatana koobi baan oranaynaa dabatana markaan soo qaadano way ku soo noqonaynaa kiiban basti ku oranaynaa inta mid cusub sameeyno dabatana halka maxaa oranaysa basti lacagtii imika aan soo eeganayna ka intaasan ku leenahay intiina waad ku qoraysaa dabatana intii kalena dawaa intii waad buuxsanaysaa dheydkana ma ilaawi kartid waxaan waa xisaab hore bil hore soo sameysay maaha wax imika aad sameynayso okay baad oranaysaa kuwaas oo isu tagay xirta imika aan qorqoranay imika ka kale hadaan sameeyo xirta aan qorqorayo isu geyntooda ayaa maxay noqonayaan waxay noqonayaan account receivable kaamka copy soo dhig dadana wax adabalkii dabatana waxaad ku dhufataa halkii dadana waxaad ku oranaysaa basti dabatana markaad basti ku tiraado waxaad qoraysaa intii deynta aan ku leenahay qofka dabatana dheydkii baad hagaajinaysaa dheydkuna waa muhiim dheydka dad ka tagto waxaan way iskaga khalkhalayaan cid aad ku leedahay cid kale kala garamaysi waqtigan xil uu ka qaato qofku ku siro garan kara okay baad oranaysaa marka tiraado aan soo eegno maxay inoo haray 3 bayn sameeynay dabatana markaad aado
ka aan taaganahay oo ka wad ku dhufanaysaa copy qun yarun baad imanaysaa Excel kuna intaas ku wacan yahay oo Excel baan waxaan ku soo diyaarsaday marka hore ka bacdina QuickBook-gan oo yimi ku dhufo sidii yaradun baa taabanaysaa basti intii aan qofka ku lahayn baan soo eegaynaa waad eegaysaa qun yar baad ku soo noqonaysaa waad ku qoraysaa ka bacdina dheedkii qasab weeye inaad hagaajisaa marnaba dheedka kama tagi kartid waa soo noqonaysaa dabeedna marka dheedka saxdo intana waa macluumaadkii aan marka hore idin sheegay okay waa iska odhanaysaa imika inta ay sugayntoodu maxay noqonayaan wadarta account receivable halka waxaad naga baadhaa account receivable maxaad ku aragtaa account receivable isugaynta wadartii subsidiarada weeye account subsidiarada ee account receivable noqday marka account receivable-ka si directly looma geliyo isaga laakiin account receivable-ka customer-ka laga soo geliyaa oo customer-ka ku soo wada qorqoraysa isugayntiisana muxuu noqonayaa halkan imika salka ku aragtaan inventory-gana saasa loo geliyayo isaga waxa laga soo gelinayaa barti inventory-ga laga soo gelin jiray item list aha account payable-kuma oo saasoo kale marka wixii aad deyn ku leedahay deyn ku leedahay saasoo kale ay soo gelinaysayo subsidiaradooda halkaas aad imika tusaalahan ka qoraysaa qofkan account payable-ka ku leeyahay imika soo eeganaysaa ma aragto qofkii koob baad ka soo odhanaysaa waad ku soo noqonaysaa vendor-kan hadda ka galayo new vendor banned waan kaga dhuftay dabeetana waxaan ku qoray qofkaas intuu igu lahaa dheedkii baan hagaajiyay dheedkii markaan hagaajiyay aan dheedkii saxay waxaan intana waa macluumaadkeeda buuxsanay waa sidii markii hore oo kale additional information ki job info-gi dadna okay baa iska odhanaysaa imikana akoonada markaan saa ururino totalkii account receivable-ka noqonayaan marka subsidiary noqonayaan ashka intaas aan ku soo gabagabanayaa waa in ashka insha Allah ta'ala